asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindi maxaa ka cusub ciwaankan waxaa haysta filimka jawan oo lagu soo fasaxay barta netflix ayadoo loo dabaaldegaya kinga qaan ama shaaruqan sanad gurihiisa konton isdedaad saa darteed markii srk taageerayaashiisa xilli hore ayay sii heleen daawashada filimka jawan waqtigii hindiya markii uu dabcan ku dhacday 6 saac habeenimo maadaama hindiya geeska afrika 2 saac ee bar ay ka horeeyaan isla markiiba waxaa lasii gudagalay sanad gurid srk iyo 2 November saa darteed markan yaqaana ciwaanaha haysta baraha bulshada taageerayaasha si weyn u dabaaldegayaan kadib markii si rasmi ah filimka barta Netflix lagu soo fasaxay waxaan ka warqabnaa mashruucan soo baxay 7 September wuxuu noqday all time blockbuster filimkii ugu lacagta badnaa taariikhda fanka hindiya sameeya luqadda af hindiga lagu daawado haddii noqon lahayd dabcan af hindi af tamil af telugu meel kasta wuxuu ka noqday all time blockbuster SRK-na dabaaldegiisa ugu bilowday ayadoo lagu wadana maalinta berita xilli hore markii ay tahay 11 barqanimo xilliga hindiya adi abaara 8 bar subaxnimada goosgooska filimka dhankii ayaa lasoo fasixi doonaa teaser kooban oo goosgoos dhammaystiran ma aha saa darteed marka SRK day ee lagu galay sidoo kale tan megastarkan caanka ee filimkiisa jawan waxa waaye extended cut waa qaybtii dhererka badneed 3 saacadood oo soconay versionka tiyaatarka kana ka xiisa badan oo dhammaystiran almost 3 hours soconay marka Netflix watch now ayaa ka daawada filimka jawan ayaa lasoo gelshay available waaye ayadoo subtitle uu wato tamil iyo telugu luqado kala duwan lagu daawanayo marka SRK filimkiisa taageerayaashiisa dabaaldeg ayay bilaabeen wayna daawanayaan sida haatan rasmiga ee lasoo daabacay marka qofkii Netflix haystan uu ku baashaali karaa af Soomaalina dabcan habeen dambe wada daawan doona hadduu alla idmo dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxaa qaybka simplicity qofka inuu isaga noolaado nolol iska caadi oo humble oosan qof weyn iska dhigin oo cirka sare saaran talabati fijiya tusaale noogu filan waxaa loo dabaaldegaya Leo Success filimkan 600 kor ku socday blockbuster-ka weyn noqday jinaa waxaa ka dhacday xaflad weyn fijiya imaada meesha xafladda ka socotay shaatigiisa caadiga iska wataa gacmaha u laaban jeans iska normal wataa sandalkiisa wataa marka simplicity in lagu noolaado waa waxyaabaha aan aniga dhankayga markii aan fiirshay favorite maba jecliba qofkan isjooxaari iyo balaayo iska dhigay iyo simple life iyo simple person qofkan iska noqdaa fiican si kastuu caan u yahay si kastuu magac u sameeyo mar walba waxaa fiican ogadan sare si tartiib isaga soco normal ee ku noolaa marka fijay waxaa aad iyo aad loogu ammaanay sida simbalka uu ku imaaday meesha dabcan ay ka dhacaysa xafladda weyn isagoo megastar laga dambeeya filimkiisa dabcan blockbuster taariikhi noqday ganacsi waali ee sameeyay haddana dharka uu qaalisan ma uu soo qaadan wax iska simple ayuu soo qaato ka muuqato habacsanaan iyo sida uu simple u yahay xitaa gabadha lagu magacaabo Trisha iyadana goobta imaaday oo daawadayaasha si weyn u soo jeeday dadkii goobta ku sugnaa Jinay Fijay waa loo kala xiray marka dabaaldeg weyn ayaa ka dhacay moolska Jinay ku yaala oo Fijay uu boqday xilli loo dabaaldegay guusha filimkan uu gaaray Trisha iyo Lukesh Conrad iyo teamka Leone goobta waa imaadeen waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee superstarka caanka Hrithik Roshan iyo gabadha heesaaga ee Trishada ee Saba noloshooda waa gabagaba waxaa la haatan xataa guriga ay degi lahaan way diyaarsadeen lamaanaha meelo kala duwan ay dabcan dalxiis u tagaan markasto sida darteed waxaa leeyahay marka dhawaan ay aqal gali doonaan xilli Saba Asad ay u dabaaldegay sanad gurida ama happy birthday ee Hrithik Roshan ay waqti wada qaateen sidoo kale tan HR iyo gabadha nolosha aad isku fahmeen dhawaan waxaa lagu wada xiriir ka dhaxeeya inuu noqdo mid rasmi ah saa darteed marka Hrithik Roshan iyo Saba Asad gurkooda dhawaan dhici doona waxaa la saadaalinaa sanadkan 2024 nagu soo fool leh in uu gurkooda dhici doono HR hore waxay u kala tageen gabadha lagu magacaabo Susana Khan oo u dhashay 2 wiil saa darteed hadda Saba Asad ayuu ku heystaa gabadhan oo dhanka heesahana qaada filmadan qaarkood ka soo muuqato dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qaybka ciyaarta qiimo badan markii aan filino filimkii dabcan Tiger 3 ayaa ciwaano sameynay hal maalin ka hor xilliga hindi lagu talagalay ayaa suuqyada caalamka laga daawan doonaa gudaha hindi waxaa la daawanaa 12 November festay Diwali laakiin overseas waxaa shaac laga qaaday in laga daawan doono 11 November gaar ahaan sida Mareykanka oo kale United Arab Emirates iyo guud ahaan golofka Europe iyo Africa iyo dalal kale waxaa shaac laga qaaday 1 November in la daawan doono tan waxay ka dhigantay kalsooni balaaran in lagu qabo productiga ama dabcan tayada filimkan uu leeyahay marba haddii filimka lagu magacaabo Tiger 3 inta aan gudaha hindi laga daawan 24 saac ka hor laga daawan doono overseas-ka sida haatan shaac laga qaado Afrika xitaa waa laga daawanaa meelo badan sida shaac laga qaado marka Salman Khan Katrina Kaif Imran Hashim filimkooda Aditya Jabr producer-ka iyo taxanaha Tiger hoos imaanaya hal maalin ka hor ayaa laga daawan doonaa suuqyada caalamka intaana gudaha hindi laga daawan sida officialka ee shaac laga qaaday isla ciwaanada kale ee Tiger 3 sameynaya waxay tahay shirkadda caanka ee YRF ayaa ku dhawaaqday imtixaanaha Spy University shirkaddan ee leedahay sida Ekta Tiger markii la fiiriyo Tiger Zindahe waa iyo Bathan
in la daawan doono laguna baashaali doono inta dabcan laga gaara 12 November sida shaaca laga qaaday. waxaa laleeyahay dabcan intaan la gaarin 12 November laga bilaabo 3 November ilaa iyo 5 November waxaa la daawan doonaa filimada Spy Universe ee shirkadan iska leeda. waxaa lagu daawan doonaa tiyaatarada caanka ah ee BVR Annex iyo Symbolis ee multiplex waaweyn. qiimo jaban lagu daawan doonaa, meesha lagu dabaaldegi doonaa si daawadayaasha xasuusa loo geliyo Spy Universe hadalhayn balaaran dabcan hadalhayn loogu sameeyo cirka loo geliyo dan markii kuwan lagu baashaalo toddobaadka xigane filimka Tiger 3 ayaa toos loo daawan doonaa. marka hadalhaynta filimka ayaa qayb dabcan ay ka mid tahay marketing ahaan in sare lagu qaado. dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qaybka ninkii Salman Khan ay wuxuu ka qayb galay soo bandhigista goosgooska filimka lagu magacaabo Faray oo lagu soo caanbixinaya gabadha uu abtigu u yahay oo sidoo kaleetana dabcan lagu magacaabo Aliza Agnihotri. waxaa aabow actarkii Vivek Agnihotri oo ay raada actarkii Atul Agnihotri dabcan aabow oo filimkii aatashi mashaariic kala duwan sameeyay. sidoo kalena xitaa Salman Khan filmo kala duwan kala soo muuqday. sidoo kaleetana Salman Khan walaashiis lagu magacaabo Alvira Khan ee gabadhan dhashay. ugu dambeyntii gabadhii yareed ee Salman Khan agtiis kusoo kortay ee lagu magacaabo Aliza atrisha noqotay filin ee hogaamiye ka tahay dhalinyaro la wadaan ayaa dabcan lasoo bandhigay. Salman Khan mashruucan wuxuu sheegay marka hore in lagu talagalay in laga daawado OTT-ga, laakiin markii uu sheekada Faray daawaday inuu aad iyo aad kaga helay kadibna uu soo jeediyey in mashruucan tiyaatarka la saaray. wuxuu rajeynayaa daawadayaasha in badan inay ka heli doonaan. saa darteed wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu jecel yahay tiyaatarka inuu filimkiisa ku wada saaray. anigana wuxuu dhahay gabadha abtigu filimkeeda waa garab istaagay. daawadayaashana wuxuu ku booriyay mashruucan inay daawadaan. waana filim iska yar laakiin qaabka loo dhigay iyo fariinta waaqiciga uu ximbaarsan yahay ayuu Salman Khan ku kalsoon yahay daawadayaasha inay ka heli doonaan, ayadoo uu ka hadlayay saaxiibo kala duwan oo filimkan kasoo muuqanaya. sidoo kale tan waxaa la daawan doonaa 24 bisha November, dabiiqada bishan ayaa la daawan doonaa. dhinaca kale Salman Khan xilli uu ku sugnaa goosgooska filimka markii lasoo bandhigaya wuxuu dabcan fariin u diray ajilayaasha Hindi ama atoorayaasha. wuxuu dhahay sameeya fariin Hindustaan ama la xiriirta wadanka Hindiya connectionkeeda. wuxuu dhahay sababaha filimada aysan u gadmin waxay tahay sheekooyinka aan dooran. wuxuu dhahay heerkii laga filaya ma ahan, contentig wuxuu dhahay kuwa wadaniyad ka muuqata ma ahan, si strongi looma dhigo. saa darteed wuxuu dhahay sameeya sheekooyin adag oo fariintooda wadani ay tahay, shacab weynaha Hindiya kicin karaan, qof kastana uu daawan kara midka ku nool mintuulo ilaa magaalo. laakiin wuxuu dhahay sheekooyinkeena Bollywoodka dhawaanaan waxay iska noqdeen oo ka dhawaajiye kuwa lagu talagalay reer magaalka keliya inay daawadaan. dhinaca kale khiyaaraya ciwaanada waxaa qaybka ee superstarka caanka ee Jian Vikram walle goosgoos waa soo bandhigay filimkiisa lagu magacaabo Thanangam anaa ka yaabo. waxaan goosgoos ma ahayn Thangalan iraade tiisa laga soo bandhigay Vikram siduu isku ekeysiyey mas'ala kala siiba gacanta inta lagu qabtaa laba cad lagu kala siibaa sida uu seefta ugu dagaalamayo, sida uu Vikram iska dhigay qowmiyadda Thangalam, sida uu matalayo warkan anaa ka yaaba. director Baranjit walle film sawada waa big movie 26 Janaayo sanadka cusub soo bixi doona. laakiin goosgooska laga soo bandhigay qof kasta ayaa la yaabay. waxaa wadada kusoo jira kan waa big movie, anig gacana u taagay. Vikram hore ayna kugu sheegay ninkan lama gaarin, wax kasta uu sameeyay waa masterpiece. Thangalan teaserkiisa daawad idinka yaabi doontiin. dhankayga teaserkaas waxaan siiyey 5 star aan siiyey, 100% gacana u taagay. dhinaca kale wiilka lagu magacaabay Ishaan Qatar iyo atirashada Munal Thakur filimkooda Biba oo maantada hore shaaca ka qaadnay in dabcan loo wiciyay OTT-ga. hadda waxaa si rasmi shaaca loo qaaday 10 bisha November, waa toddobaadkan dhammaadkiisa in laga daawan doono barta loo yaqaano Amazon Prime Video. filimkan fariintiisa wadaniyadda iyo dagaalka ay tahay tiyaatar ma soo aaday sababtoo dhawaanaha mashaariic waaweyn oo tiyaatar ka soo aadeen ayaa ku fashilmay. marka wiilkan intuu joogaa filimkan lagu magacaabo Bibana haatan waxaa loo wiciyay OTT-ga oo Amazon Prime Video laga gaday. toddobaadkana daawan doonaa 10 bisha November, waa wiiga dambe hadduu alla idmo. guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku egyahay. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.